kusoo dhawaabaan aad baad mar labaad u mahadsan tahay saxafi gaxnuug iyo kamaramaanadeennaba khaalid bakayle oo kamaramaan ah waan idinka mahad celinaya allah baraka waayahay waxaan soo qabanayaa maansada la yiraahdo dheelitire ama gabayga dheelitire waxaad kaga hadlaysaa sida aan ka dareemay wadaniyada sidoo kale dhalinyarada laftirkoodii ayaad markaasi wax kaga sheegaysaa sida ay markaasi ay sula jaan qaad laayeen sidoo kale iskaashiga ayaa kamid ah maansada bal faahfaahin naga sii gabaygan dheelitire niyo warta wuxuu xambaarsan yahay magaciisa sida ka muuqato waxaan u bixiyay dheelitire niman badan oo professorada Soomaalida ku kamid yihiin oo Professor Ahmed Samatari ku jiraan ba waxa la weydiiyaa Soomaalida iyo halkeeda la weydiiyaa Soomaalida iyo halkeeda ayaa la weydiiyaa dadna nimanba waxay ka tageen dayro waxay u dhamaato nololima harin niman kale meel aan ahayn oo luluyi bariga laga raadinay ka raadinayaan wadiga arkeeda gabiga hore aan ku sheegaynay doorkii maalintii hore aan ka hadlaynay taayirba magaca loo samaystay dabeedna gabaygan dheelitire wuxuu xal u arkaa aan magacaan ugu bixiyay haddii la helo ummad noocan haddii la helo ummaddu san iska bedesho inay noqonayso ummad horumar gaadho oo rajo qurux badan leh oo aan ciidana la lahayn rajada leedahay maanta oo arkay dadka ugu rajada waxaan dunida yihiin markaa Soomaalidu dheelitire markaa wuxuu ka hadlayaa wuxuu ka saarayaa isku tiirsanaanta iyo wada qabsiga waxa loo yaqaan wadaniyada oo Soomaalidu ibir ay imka ka tahay iyo waxa loo yaqaan dhalinyarada iyo kaarinteeda ay bulshada ku leedahay waynu iska dulmarnaa wuxuu leeyahay asal kaba dhaxtaal gabay kolkaan dhab ugu looqeeyo dhayal kuma aroosiyo murtida dhaasasiyo beene dhay iyo lisbuiga yahay dhuuni iyo soore sida igan maqaar loo dhigaan ugu tul dhaacdaaye dhibic iyo xareed buu ka yahay dhaadashada guud dhulta gabay dhameyskii murtida dhumucda geeraarka hadduu macallinkii dhig yaqiin uu lis dhinac taago amuu dheeri sheegtay abwaan dhacartay suugaanta asuu dhaqan yaqaan iyo isbida dhaadhig gabayaa ah waa inuu dhaliishii jirta iyo dheefta laga seexday dhaqan lumay warkii dhaaxa jiray sheeka dhici doonta cilmi dhaba xadiis dhigashadii dhaqanka diinteenna iyo aayihii laga dhursugisay dhudhumiya mar hadday sadhiiridu tiraa urtix ku dhiiqda wayman laawayaasha suugaanta ku qalaabta mar hadday sadhiiridu tiraa urtix ku dhiiqda asuu dhuun raaciyay hunguri dhaafshay gabeegiisa amuu dhalangadiye maansada iyo dhidibka suugaanta oo uu dhufliye heeso iyo dhilifiq soo saaro misnaynu dhamow yahay abwaan dhowr qof ugu yeedhay kama dhaco durwaagiisii aardhaata tahay ansa kuma dhareersada niman dhiban karaahayna Axmed oo dhalaartan fatoo dhudaha suugaanta dhacda mudan dhanbaa laga tabsho iyo uunku midu dhaado oo dheelitire doonaysa iyo cayman lagu dhuujo ayaan gabay dhali laga nasahay dhab ugu sheegaya samaydii dhalo laga qortay ee dhabiga loo diiday dhugta loogu dudaya aniga weela dhalanteed warbaasha halka laga raadinaya aniga samayda waxa la dhahdaa usha leebka lagu ridayo dhabiga dhirta adag baa laga qoraa hadii dhalosho dhirta ugu jilicsan laga qorto oradaha hadana waxaan doonayaa inaan ku dagaal tago ninka wax suura galaysa maaha samaydii dhalo laga qortay dhabiga loo diiday dhugta loogu dudaya aniga wayla dhalanteeda dhaliishaada intaad moogan tahay dhalada ka saaran inaad dhayato waa folosh runtii dhaawac kugu yaal maamaaragii hore dhigay dhaxalkan soo gaaray hadii aan ku dhaato murtida erey ka soo dheegto ruqa dhabarka kii qaban lahaa dhilifka jiidayo dhamalina u laafiyotay iyo tagni kala dheer waxaan uga dhawaadiyay murtida dhumucda foolkeeda dhugteeda iyo ujeedada hadaan dhar ruufaaleeyo hadii uu dhagtiisa hidaha waalid dharan doorsho dhaxalkii dadkiisa iyo haduu dhaqanka turiyeeyo cilmi dhimirka naxshiya haduu maar badhigi waayo oo dhashiisa yaakada jiilka dhalan doona way dhaga barjamo runtii aaran ku dhalay adduunkuna ku dhala maaha iyo dhima sidaadii iska soo dhumbuqsiya maaha daartu dhalanteed dhudhumada inaad laabatiya maaha dharag doona dhismaheedu waa saad dhigma iyo dhacan la saara hadduu dhinac bannaan yahay sabtuba dhada ma moosteena kolkii dhidiba adag loo qoday iyo dhagax shamiitaysan ayaa dhaxanta laga hoos galay iyo dhib iyo aafaad
ayaa dhaxanta laga hoos galay iyo dhib iyo aafaada dhumucdiyo awoodaha haddaan dheefta lagu tuujin dhagxanta iyo haddaan lagu qodayn dheemantiyo luulka dhumucdiyo lixaadkaasina yeelan waa dharaq dhumucdiyo lixaadkaasina yeelan waa dharaqa nin waliba dhitadu kaydsaday ayuu waay dhamayaa dhashiisa oo ayda iyo bulshada guushku sii dhigay waana dhaxalka aadmigu hanto iyo dheefta loo haray dhaqashiyo wax loo wada guntaday libiya dheeraada nimaan dhid u saydnimo hela darajo dhiicooya dhayal iyo cayaar laguma degay hirarka dhaadheer hawl iyo dhib baa loo mutaa guusha dhalinteed dhaqso kuma timaado muddaa loo dhaqdaa tacab dhursugeedu wuxuu saaran yahay xeelad loo dhigay hadduu dhiciyo yoolkaad lahayd looma dhaco hoose dhexdaa loo xidhaa maalintuu dhelli kaa galo hadduu dhiciyo yoolkaad lahayd looma dhaco hoose dhexdaa loo xidhaa maalintuu dhelli kaa galo dhexdaa loo xidhaa maalintuu dhelli kaa galo dhago feejig dhugma fiiro dheer maan wacyiga dhaadan iyo dhumuc midaa lagu hantaa guusha dhalinteeda inaan dhuuxyo weyn iyo laxaad dheefta lagu keenin dhurduhuba itaal siduu ka yahay waydun dhugateen misla dhuux casawreeda buu dhigay suurtiisii waa kaas la dhamay aadamuhu dheeftu kaydsaday wax harkacada muu dhigan kareen midiba dheegiisa dhudhumada iskaashaday ayaa dhaliyay guushaasi mid kaloo dhigeeda haddaan dhab uga faalloodo dhool lama qasaboor kuba wuxuu dhooba ka abqaalay oo uu camuud iyo dhareer xoog isugu dhaabay dundunteenu dherarkeeda iyo dhumucda xooggeeda dhismaheeda yaab kale dadii u dheega gelayna mid kaloo dhigeeda haddaan dhab uga faalloodo dherigaba haddii laba dhadhaar dharada loo saaro inkastoo la dhacamoodiyo ruudu dhuxulowdo mar hadduu laxaad dhiibsha iyo dheelitiro waayo waaba tulud u dhuundhuumiyey dhayla karin waa waxse jira ilaah miduu dhigiyo aayad dhumco weyne dheeriga addoomuhu sitaan taas ka dhalaro waxaan uga dhawaadiyey murtida dhumucda foolkeeda dhugteeda iyo ujeedada haddaan dharar u faalleeyo dhegta maqalka weeye waan suureeyo marabkan ay samaysa shinnidu iyo bahalka yare loo yaqaano dhurdaha bilaa aadamku oo dhamay hadday isku tagaan ma samayn karayaan adeeg bilaa aadamku hadday isku tagaan ma samayn karayaan waxaa la doonayaa sonkor bay walaaqaan markay sidoo sameeya intay bar ka soo qaadaan calaasha waa cilmi aanu ilaahay bilaa aadamkiisu inuu ka yarsiiyo weeyaan ilaahay cilmigan isagu wuxuu siiyey bilaa aadamka muu siinin dhurdaha yar buu siiyey iyo shinnidaas ilaahay cilmi aanu siinin injineeradeenu ilaa alaankaa aanay gaadhin buu awoorkaa yar siiyey haddii lahada injineerada caalamka waxaad taagtaa tuduntaa rukun leeg oo bilaa garaa'ida ma taagi karayo laakiin sibidhna ma qaado bahalkaa yar dhoobada iyo camuudi dhareerkiisa iyo camuudaasu baalaha inta dhar laaliaynu yaabnay buu isagu sameeyey waa ilaahay cilmi isaga siiyey laakiin bilaa aadanka marka waxaanu arkay inuu waxaanu cilmi aqoontiina halkan gaadhay xayawaankaa yare intaa le karaamada ilaahay siiyey aqoon aanu aadamuhu lahayn inuu leeyahay waxaan uga dhawaadiyey murtida dhumucda foolkeeda dhugteeda iyo ujeedada haddaan dhar uu faalleeyo dhegta maqalka weeye oo cilmiga dhaca ninkiisii dagaaruurka dhaankii ku furay dharab abraarkii dhunkaashii macaan laga dalbaday malab ka soo dhiiq dhunkaashii macaan laga dalbaday malab ka soo dhiiqiyo bahal qurunku dhala baa jira oo u dhalaal run bahalka darxiga la yidhahdo u naqaanaa warshado dhan baa ka soo saara dharka xariirta yidhahda dunida ugu qaalisan bahal qurunku dhala baa jira oo u dhalaal roona dhabandaadku waa jaahilka oo dhowaan weligiisa dhaayaha aqoon baa furtay dhigasho raacadeeya hala dhugo dhambaal yaaraah midaan ku sii dhaafay dharka ruux ka caydhoobay baad mare u dhiibtaaye walee dhimarka ruux ka arradow dhacantay ceebtaadu dharka ruux ka caydhoobay ayaad mare u dhiibtaaye walee dhimarka ruux ka arradow dhacantay ceebtaadu